waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed ay markhaati noo noqdaan oo ay kala fahmaan cidda doonaysa inay doorasho dhacdo iyo cidda diidan, cidda doonaysa inay foodo qax iyo qori wax ku raadiso iyo cidda doonaysa inay qaadato go'aan kasta oo ay ku jirto danta dalka iyo dadka iyo diinta. mudanayaal iyo marwooyin, waxaan dhammaantiin idinka codsanaya idinka oo xeerinaya duruufaha siyaasadeed ee dalka ku gaadaaman iyo marxaladaha cakiran ee aan ku jirno inaad nala qaadataan in lagu noqdo ama lagu laabto heshiiskii wada ogolka ahaa ee aad ansixiseen 26 Sebtembar 2020. golaha sharafta leh, waxaan rabaa inaan caddeeyo in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu hoggaamin doono diyaarinta iyo hirgelinta doorashada iyo amniga doorashada, sidoo kale fulinta qorshaha amniga sida waafaqsan dastuurka dalka waxaa iska leh ra'iisul wasaaraha. waxaan farayaa xukuumadda inay u diyaar garowdo hawshaas baaxadda leh ama baaxadda weyn. feeri horta aan isdhegaysanno heshiiska 17 Sebtembar baarlamaanka wuxuu ansixiyey 26 Sebtembar. waa sidaasi fariista xildhibaanada sharafta leh fariiso xildhibaanada sharafta leh codsiga madaxweynaha oo ah in dib loogu noqdo sharciga heshiiska siyaasadeed ee 17 Sebtembar doorashada baarlamaanka inta ogol u codaynaysa gacanta taagto. codaynta sidaan ayay u dhacday. heshiiska 17 Sebtembar in dib loogu noqdo wax ka aamusay ma laha, xildhibaan diiday ma laha, waxaa ogol u codeeyey 140 xildhibaan. sidaas awgeed waxaa loo noqday heshiiskii 17 Sebtembar sidaasuu ansax ku yahay. guddoomiye waa mahadsantihiin, waa mahadsan tahay adiga xildhibaanada sharafta leh. waxaan ku faraxsanahay aan idinkaga mahad celinayaa xildhibaanada sharafta leh inaad ku soo biirteen kalaabka tanaasul oo aad ummadda Soomaaliyeed u tanaasulsheen. haddaba si aan waqti badan nooga lumin dalkana aan ugu horseedno doorasho si xasilooni ah ku dhacda lagana wada qayb qaato, waxaan ra'iisul wasaaraha u xil saarayaa qabanqaabada iyo martiqaadka shirka madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah iyo gobolka Banaadir si loo meel mariyo qodobadii lagu heshiiyey 17 Sebtembar iyo kii 16 Febraayo ee magaalada Baydhabo oo aan wax shuruud ah aanan lagu xirayn. insha Allah waxaan xukuumadda ka rajeynayaa inay hawshaas u guda gasho sida ugu dhaqsiyaha badan. waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed ay markhaati noo noqdaan oo ay kala fahmaan cidda doonaysa inay doorasho dhacdo iyo cidda diidan, cidda doonaysa inay foodo qax iyo qori wax ku raadiso iyo cidda doonaysa inay qaadato go'aan kasta oo ay ku jirto danta dalka iyo dadka iyo diinta. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.